السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن cusub waxaynu ku baranaynaa Python operators iyo control flow statements oo ah if statementigii. Marka if statementki marka hore inaan taada baran waxaa fiican inaad marka hore fahamto operatorska. Waayo operatorska ayaa loo isticmaalaa marka la chegaraynayo conditionkii. Marka operatorska ugu horeeyan baranayna waxa weeyaan waa comparison operators. Comparison operators return true or false based on condition. Marka conditionkay ku xidhan tahay wuxuu kuu soo celinayaa true ama false. Marka ka ugu horeeya labada equal sign wuxuu la mid yahay equal to. Marka a is equal to b oo kale. Marka ama true ama false buu kuu soo celinayaa. Kana waa not equal to, kana waa greater than, kana waa less than, greater than or equal to, iyo marka less than or equal to. Tusaale aynu arkaynaa marka ku saabsan qaybtan. Marka haddaan samayno laba number a is equal to 5, b is equal to 10. waxaan oran karnaa print a is equal to b. marka false ayuu noqonayaa. marka waxa weeyaan is a equal to b ayaynu hadda nidhi. waxaa noo soo baxaya false. haddii aynu haysano markaa variable kale c is equal to 5 on dhahno is a equal to c, waxaa noo soo baxaya true. marka qaas waa equal to. waxaan kaloo baranaynaa greater than. is a greater than c false buu noqonayaa waayo way isla egyihiin. laakiin haddaynu dhahno is a is b greater than a, waxaa noo soo baxay true waayo a is greater than b is greater than c. haddaynu dhahno is b less than a waa false. laakiin haddaynu dhahno a is less than b waxaa noqonaysaa true. waxaa kaloo jira marka less than or equal to. a is less than or equal to b ama uu ka yar yahay ama uu la eg yahay. marka waa true marka uu ka yar yahay. haddaynu dhahno is greater than or equal to false ayuu noqonayaa. marka greater than equal taas waa muhiim. waxay muhiim yahay haddaynu dhahno matalan age is 18. haddaynu dhahno waxaan rabnaa wixii 18 la eg ama ka weyn inaynu chegarayno. haddaynu dhahno age is greater than 18, waxay noo soo baxaysa false. marka 18kii kuma jiro. waxa 19 wixii ka bilowday ayaa true noqonaya. laakiin haddaynu dhahno greater than or equal to, marka wuxuu noqonayaa true ayuu noqonayaa. 18 iyo wixii ka weyn ayaa marka conditionka true noqonaya. waxaan kaloo samayn karnaa marka haddaynu dhahno laba number oo kale a is 5 not equal. haddaynu rabno inaynu egno haddaynu dhahno a is not equal to b, true ayaa noo soo baxay waa islama eka. haddaynu dhahno laakiinse c dii soo celino c is equal to 5 on dhahno c a not equal to c false ayaa soo baxay waayo isla egyihiin labadoodu false. marka xaggaas waxaanu ku baranay comparison operatorska. qaybta ku xigta waxa weeyaan logical operators. marka logical operatorska waxaa loo isticmaalaa used to combine conditional statement. comparison operatorski hal condition kaliya ayuu inoo checkaraynaya. like sadeen rabna multiple condition. haddaan rabna inaan eegno qofkan magaaladu degan yahay, da-diisu intay tahay, waxyaabahaas conditionno kala duwan haddaan rabna inaan eegno waxaan isticmaalaynaa logical operators. marka and ka ugu horeeya returns true if both conditions are true. labada condition ba haday true yihiin ayuu markaa true soo celinaya. hadduu midkood false yahay marka ma soo celinayo true. or laakiinse wuxuu kaga duwan yahay returns true if at least one condition is true. marka midkood hadduu true yahay wuxuu soo celinayaa true. hadday dhammaantood false yihiinna markaa false ayuu soo celinaya. not reverses the result. marka not
وحسو علينا مرلبا وحو عكس أيو شقينيا هدو true أها false أيو كدقيا هدو false أهانا true أيو كدقيا مركا تصاليا لأينو أركينا منك هذا اللي صدح نمبر بنا هيسرنا هذان لهانو print A is A equal to C or true كاسي and B is greater than A لابدن با true كان هو true A is equal to C and B is greater than A marka waxay noo soo baxaysa hadeen ran garayno true ayaa soo baxaysa labada condition ba laba kaliya ma 3 4 5 intaad condition isticmaal kartid gelin kartid rabna and C is less than B inta doonto condition ay gelin kartaa laakiin waa inay dhamaantood true ahaadaan haddii midkood uu yahay false مثلا hadeen dhahno C is greater than B markana waa true kana waa true lex kana false ah result wuxuu noqonayaa false waayo midkood ayaa false ah false ay noqonaya marka and waa inay conditionado dhan true ahaadaan laakiinse or wuxuu kaga duwan yahay hadduu midkood true yahay taynu dhahno or labadana true hadduu mid true yahay result waa true marka kan waa true haddana kan حتى false ka dhigno wali true ayuu soo celinayaa true marka conditionka saddex conditionada haysato hadduu midkood true yahay true ayuu soo celiyaa dhammaantood haddii false yahay ayuunbuu false soo celinaya marka hadaynu dhahno A is greater than C marka dhammaantood waa wada false marka end result wuxuu noqonayaa false intaas marka waa or not hadaynu isticmaalno hadaynu dhahno B is greater than C marka waa true ayaa noo soo baxay haddaynu marka not isticmaalno waxaynu nidhi cagska ayuu bedelayaa meeshii truega ahayd ayuu false ka dhigayaa false ayuu noqday meeshii truega ayuu false ka noqday laakiinse haddaynu dhahno B is greater than C marka waa false not markaan isticmaalno true ayuu noqonayaa true ayuu noqday marka not mar walba cagska ayuu bedelayaa waxaynu ku arki karnaa haddaynu dhahno truegii haddaynu not raacino wuxuu noqonayaa false falsegiina haddaynu not raacino isna wuxuu noqonayaa true marka qaybtaasina waa logical operatorska waxaa ku xiga identity operators are used to compare memory locations waxaa loo isticmaalaa markaad laba item ama laba shay ama laba variable aad eegayso inay isku mid yihiin oo ay isku memory location ay yihiin ama ay that they are pointing to the same memory location inay labadoodaba same memory location ay ku jiraan marka waxaa la isticmaalaa operatorka is returns true if both variables refer to the same object marka hadday labada object isku mid yihiin true ayuu soo celinaya is not returns true if variables refer to different objects haddaynan isku mid ahayna is not ayaa true soo celinaysa marka laba tusaale ayaynu arkaynaa labadan operator ku saabsan halkan waxaan haystaa laba list names 1 iyo names 2 hadaynu eegno marka inay isku memory location yihiin horta memory location sida lagu ogaado waxa weeyaan horaan usoo dhiganay print id identity and id-gaas names 1 haddaynu dhahno iyo names 2 wuxuu inoo sheegayaa marka memory locationka ku jiraan numberka dheer weeyaan names 1 ka xag ku jira names 2 na xaggan ku jira marka haddaynu dhahno iminka names 1 is marka waxaan eegaynaa is names 1 the same object as names 2 oo kale inay la mid tahay waxay inoo soo celinayaa false marka isku mid maaha haddaynu dhahno is not isku mid ma aha miyaa inagoo nidhi bay la mid tahay marka wuxuu soo celinayaa true isku mid ma aha haddii laakiinse mid cusub aan sameeyo names 3 is equal to names 1 haddaan dhaho names 3 is equal to names 1 marka names 1 iyo names 3
haddaynu eegno haddaynu memory ku jiraan haddaynu labadaas names 1 iyo names 3 waa isku mid ayaynu ka dhignay halkan yara comment ayaynu gelinaynaa waxaan arkaynaa inay isku memory location yihiin labadoodu sababtaasaa marka haddaynu hadda check garayno is names 1 equal to names 3 haddaynu dhahno true ayaynoo soo baxaysa waayo labadoodu waaba isku mid oo isku memory location ayay ku jiraan haddaynu dhahno is not false ayaynoo soo baxay marka waa muhiim isagana waxaa la isticmaalaa identity operators waxaa la isticmaalaa markaad eegayso inay laba object isku mid yihiin qaybta ku xigta ee aynu arkayno waxa weeyaan membership operators horeynu soo aragnay markaad rabto inaad eegto inuu shay list ku dhex jiro oo kale in ayaad isticmaalaysaa marka check if a value is in a sequence hadduu sequence ku dhex jiro list ama collection ama tuple ahaado ama set ama list waxaad isticmaalaysaa ama in ama not in returns true if value is in the sequence hadduu marka sequencegii ku dhex jiro true ayuu soo celinayaa not inna returns true if the value is not in the sequence haddaanu sequencegii ama listigii ama collectionkii aanu ku dhex jirin shaygaad raadinaysay ayuu soo celinayaa true tusaale ayaynu arkaynaa ku saabsan xagganna marka halkan waxaynu haysanaa list names waan kaska daynaynaa names kabacdi haddaan rabo inaan eego print matalan deeqa in names magaca deeqa ma ku jiraa listigan waxaa inoo soo baxaya true sidaan hore usoo aragnay waa case sensitive hadaynu d yar isticmaalno waxaa inoo soo baxaya false hadaynu dhahno laakiinse cusmaan oon ku jirin listiga hadaynu eegno aynu dhahno cusmaan in names false ayaa soo baxaya hadaynu dhahno laakiinse kuma jira miyaa not in isna waxaa soo baxaya markaa true marka in iyo not in horeynu soo aragnay iyagana waxaa la dhahaa membership operators mar haddaynu fahnay control operatorska waxaynu hadda fahmaynaa markaa control statementska waa if statementkii tusaalayaal ku saabsan ayaynu markaa arkaynaa halkan marka waxaynu haysanaa variable age 17 waxaan rabnaa inaanu eegno wixii 18 ka weyn ayaynu ogolaanaynaa matalan inay vote sameeyaan oo kale ay codeeyaan wixii ka yarna waxaan odhanaynaa waad yar tahay marka waxaan odhanaynaa if age greater than or equal to 18 marka 18 iyo wixii ka weyn print you can vote ama waad codeyn kartaa marka maadaama 17 uu yahay imika waxba inooma soo baxayo hadaynu laakiinse ka dhigno 18 waxaa inoo soo baxay you can vote 18 iyo waxaynu dhihi wixii ka weyn true ayaa soo baxaya ama you can vote conditionka ayaa true noqonaya laakiinse wixii ka yar haddaynu haysano iminka 17kii waxaynu aragnaa inaanu hadda waxba inooma soo baxayn marka inaan else ku darnaa else waxaynu markaa sorry else waxaynu gelinay sorry you are too young markii maxaa soo baxaysa sorry you are too young waxaynu haysanaa if statement iyo else marka if hal mid if ayaan gelin karnaa statementiga iyo hal else laakiinse waxaa kaloo jira if oo markaa inoo ogol inaynu conditiono kala duwan eegno iminka waxaynu arkaynaa tusaale ku saabsan if marka price baynu haysanaa waxaynu rabnaa inaan discount siino customerska waxaan leenahay if priceku hadduu ka yar yahay 50 discount wuxuu noqonayaa 5% matalan 0.5 if priceku hadduu ka weyn yahay 50 and hadduu priceku ka yar yahay ama la eg yahay 100 waxaynu siinaynaa discount 10%
kaas 50 baynu ka dhignay may haddaynu dhahno markaa 0.05 halkaana discount 10% LF kan haddana LF kale aynu ku dari karnaa haddaynu rabno waxaynu idhi priceka hadduu isna ka weyn yahay markaa wixii ka weyn 100 ilaa 500 waxaanu siinaynaa 20 else wixii markaa intaa ka badan 500 wixii ka badan discount waxaanu odhanaynaa markaa waa 0.330 marka muhiimaddu waxa weeyaan LF kaas haddaad rabto conditionno kala duwan inaad eegto waa inaad isticmaashaa LF marka intaa doonto LF ayaad isticmaali kartaa laakiinse conditionka waa inuu lahaadaa uun hal if statement iyo hal else statement inta kale LF intaa doontaad ka isticmaali kartaa marka haddaynu imika priceka waxaynu nidhi haddaynu print garayno discountiga waxaa inoo soo baxay 0.1 tan ka dhiga laakiinse 300 0.2 marka LF kaas ayaa muhiima inaad fahamtaan inaad intaa doontaad ka isticmaali karto okay waxaa la gaadhay waqtigii challenge-ga marka intaad video wajeera joojisaan waxaad isku daydaa inaad ka shaqaysaan challenge-gan waxa weeyaan write a Python program that asks the user to enter their exam score marka waxaad weydiinaysaa qofka inuu geliyo waxaad qoraysaa program Python ah oo weydiinaya qofka inuu geliyo scorekiisa exam scorekiisa marka inuu geliyaa 0 ilaa 100 and determines their grade using the following grading system marka systemkan ayaa markaa rabaa inaad print garaysaa hadhowta hadduu 90 ilaa 100 geliyo A ayaad print garaynaysaa oo ah excellent hadduu 80 ilaa 80 ilaa 89 waxa weeyaan B good job 70 ilaa 79 fair effort ayaad gelinaysaa C 60 ilaa 69 D needs improvement waa inaad yaraa kor u qaadaa scorekaaga below 60 waa failed F marka waxaa muhiima inaad la socotaan if the user enters a number outside 0 to 100 hadduu number 0 ilaa 100 ku jirin hadduu geliyo waa inaad print garaysaa invalid scorekaad gelisay sax ma aha please enter a number between 0 and 100 marka isku daya ka bacdi waxaynu arkaynaa resultiga ama solution aynu arki doonaa good luck waxaan rajaynayaa si fiican uga shaqaysaan intaan qori lahayn waan idiin sii qoray marka waan sharaxayaa score marka hore waxaynu weydiinaynaa ardayga scorekiisa waxaa muhiima inaynu markaa integer u bedelno oo waxaynu hore usoo baranay in inputku mar walba uu soo celiyo string marka mar haddaad integer u bedesho number ayuu noqonayaa ka bacdeed conditionkii halka markaa eegi kartaa marka scoreka hadduu 0 ka wen yahay kana yar yahay 60 marka ilaa 59 waxaan odhanaynaa your grade is failed 60 hadduu ka wen yahay ama la eg yahay kana yar yahay 69 ama la eg yahay waxaan odhanaynaa your grade is D needs improvement 70 ilaa 79 your grade is C 80 ilaa 89 your grade is B good job 90 wixii la eg ama ka weyn 100na ka yar ama la eg waxaan odhanaynaa your grade is A intaa wixii ka soo hadha marka waxaan odhanaynaa print invalid score aynu print garaynaynaa please enter a number between 0 and 10 marka haddaan iminka gelino 50 haddaynu gelino waxaynu print your grade is failed mar labaad haddaynu run garayno on dhaho 70 waxaan odhanayaa C fair effort haddaynu run garayno 95 haddaan geliyana soo baxay grade A haddaynu dhahno matalan 110 ayaynu dhahaa please enter a number between 0 haddaan negative gelinana sidoo kale minus 10 ayaynu dhahaa please enter a number between 0 and 100 halkaas ayaynu ku gabagabaynaynaa casharkan waa inoo casharka dambe haddii ilaaha idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh